kadib markii uu soo dhamaaday khudbadihii ay u jeedinayeen mas'uuliyiinta xisbiyada isbahaysiga mucaaradka ay taageerayaasha taabacsan xisbiyadani ayay socodluga waxay ku soo mareen wadada weyn ee halbowlaha halkaas oo ay tubeen siirooga magaalada Burco isla markaana ay ka bilaabantay rabshad u dhaxaysa ciidamada booliska iyo sidoo kale dadka shacabka ah ee mudaharaadayay ayaa gubay taayiro iyo sidoo kale dhagxan u adeegsaday ciidamadaasi isla markaana ciidamada soo gaaray goobtan oo ah military iyo booliska hore u joogay ayaa waxay adeegsadeen rasaas oo ay ku kala dareerinayaan dadkan mudaharaadaya isla markaana tuuraya dhagaxa iyo taayiradana ku gubaya laamiga xogayo ku xigeenka xisbiga wadani doob oo isna dadkaasi shacabka la hadlay ayaa sheegay inay joojiyaan rabshadaha isla markaana si salmiya u banaan baxaan isku soo wada duubo waxa jira khasaare dhaawac ah oo soo gaaray shacabka iyo sidoo kale ciidamada booliska balse ilaa iyo hadda ma jiraan mas'uuliyiinta kala duwan ee gobolka Togdheer iyo ka degmada taliyaasha ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland wax rasmi ah oo ay xaqiijiyeen isku soo wada duubo shacabkan mudaharaadiyay ayaa tuban shaariciyada magaalada Burco iyadoo isku dayeen ciidamada kala duwan ee militariga iyo boolisku inay kala dareeriyaan dadkaasi wixii warreey ka soo kordha waxaan idin kala socodsiin doonaa telefishinka CBA waa anigu ah Nuux Maxamed Cabdi